nabadoon haddaad maqasho waa gabadha looma soo ogola cilmi baarista waxaan u arkaa fikrad aad u wanaagsan cid kasta oo haweenka u keenaysa wax allaalay wixii ka faa'iidaysa ah oo aqoon kororsi ah oo fikrad uu isweydaarso bini'aadanka ka mid ah cid kastoo naha u keento waan soo dhawaynaynaa oo u baahanay mar walba in lagu soo celiyo waayo waxa weeye qofku wax buu fahmayaa cilmi baaris dad baan oqoon cilmi baaris wuxuu baaray dad baa dhahayo balse markuu maanta maqlo oo bari uu helo maalinka dambe wuxuu baarayaa wixii xaqiiqada ahayd oo ka jiray dalka ama markaas degmadii uu joogo ama gobolku joogay ama istoodku joogay wixii ka jiray waa cilmi baaris lagu yahay uu ogaanayaa marka anaga aad iyo aad baan u soo dhawaynaa cilmi baaris aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa anagu aan haweenkiinahay oo bulshada lafdhabarkeediinahay wax alla wixii anaga hawlahayaga ama maxaan ku yiraahdaa wax qabadkayaga ama danahayaga horta ka shaqeynaya waa la shaqeynaynaa raali baan ka nahay cilmi baaristu waxay ku siyaadinaysaa waxyaabo badan bay noo siyaadinaysaa wax Soomaalidu waxay tiraahdaa xog la hele tala la helaa raali waxaan ka nahay in la ogaado caqabadaha jira siiba anagu haweenka ahaan caqabadaha iyo fursadaha aan u baahanahay wax nala dhaliid kareeyo oo ogaado oo aan u sheegano oo xogteeda u sheegano oo nala qaban kara diyaar baan u nahay waan rabnaa horta way mahadsan yihiin macadkan waxaan aniga ra'yigayga markaan ka hadlo waxaan u arkaa in ay tahay kor u qaadida dumarka maxaa yeelay waxyaabo badan oo naga qarsoona ayaa maanta ogaanay inay noo soo bixi karaan ama aan siyaasad ka geli karnaa ama dawlad kala shaqayn karnaa adii niyadeena ayaa ogaanay inaan waxba qaban karno waxaana tusay macadkan waxaan u arkaa cilmi baarista inay fiican tahay maxaa yeelay waxaanan ogayn ayaan ogaad cilmi baaris noo hor loon ku faraxsanaa waxaan sugaynana waa wax noo koowa marka ugu horeysa horta waxa weeye gabdhaha caqabada badan bay hortaan marka xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta ay u istaagayso waa inay iyada laftooda marka hore meel ammaan ay ku socoto ay hesho sida darteed hilibgeed saaran meel walba inta rag hore isma marin karo waa midda koowaad midda labaad dhaqaale la'aan ayadoo hadafkeeda haddana aysan ku taaban karin wax nooliya iyadoo haysa midda saddexaad raggii laftooda oo aan u ogolayn haweeneydu inay soo shacbaxdo waxaa jirta hadda kaba soo qaad gobolka Gedo diyaarad in la helo ma ahane jid soo mari karno nalama qayb qaadan karaan markaas haweenku waxa ka sameeyay hadda ka socdo kama qayb qaadan karaan in halkan diyaaradii laga baxo alla taga xamar laga sii baxo degmasas loogu taga ma ahane hadda caqabadu waxay weeyaan marka dus wadada isu furnayn waa caqabad haddana marmarka qaarkood konfliktiyada iyo dagaalada mudug waxayba noo noqdeen annaga saldhig annaguna dumar baan nahay doorka naga hortaagan waxa weeye rag iyo siyaasad baa naga hortaagan raggu waa hubaysan yahay dumarku ma hubaysna nabadiina waa u baahan yihiin waana u oomanahay oo hadda annaga bayna saameynaysaa annaga maxay hadda saameyn nagu leedahay wiilka yaga dhimanaya barakac baa nagu dhacaya kufsi baa nagu dhacaya haantaa wilif baa nagu dhacaya waxa weeye doorka naga hortaagni waa inaanan hagi karin oo hogaamin karin marxaladda halkaas ku jirta waayo waxbaa la kala tirsanayaa dad baa ku kala maqan rag baa islaayay ummad badan baa ku kala maqan dawlad wuxuu qaybisay oo wuxuu kala gurtay oo maxay hayto wixii ay isku lahaayeen kala siisay oo maaragtay dib u heshiisiin ka furtaana ma jirto oo maaragtay ma ay gelin hortayo haddii annagii dumar baa nahay ma wajihi karo iyadoo aan turxaamaha la gurin marka maasha Allah waxa haweenka isu keeno rag waa la heshiisiyaa khilaaf bixin baa dhacda shirir baa loogu qabtay Djibouti Kenya meelba waxa haweenka Soomaali khilaaf bixiyo oo isu keenay oo wax dhaxgale waa noo ku amleena dadkii waxay caadaysteen dhaqamo caado ah ama jahli dhaqamada caadada ah gabdhaha lama shaqeyn jirin dhaqamadii hore caada dhaqan kala dhigi jiray gabdhaha lama shaqeyn jirin
inta badan marka raggii maadaama la gudbay oo heer caalami la gaaray oo 2017 la maraayo maanta qolkiiba 30 ayaa fahamtay caada dhaqankii inay ka gudbaan su'aasha su'aal muhiim waaye waxaan arkaa inay door fiican ay ku leeyihiin haweenku qayb weyn ay ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo preventionka ama kahortagga khilaafaadka waxay door weyn ku leeyihiin qaabkii loo dejin lahaa ama loo heshiisiin lahaa ama dadka khilaafka uu dhex maray qayb weyn looga qaadan lahaa waxay sameeyaan wax la yiraahdo wacyigelin fara badan iyagoo isticmaalaya dhinaca sugaanta barnaamijyo fara badan bay ku isticmaalaan igoona nagar lahaay hareeraha eego Soomaali lunoqo higs arsaaqoonta hada cilmigeeda ooganta inay tahay gabadh walba way jeceshay inay asturnaato gurigeeda fadhido caruurteeda korsato laakiin markay kugu kalifto inaad ilmahaaga xuquuqdiisa u dagaalantid inaad ilmahaaga nabadgelyadiisa u dagaalantid inaad ilmahaaga tacliintiisa u dagaalantid albaab iskuma xiri kartid marka dumarka Soomaalidu si ay dumarka adduunyada ula jaan qaadaan oo wadankooda ula jaan qaado ayagu waxay ka fikiraan meel dheer nadariyada dheer bay leeyihiin caruurtooda u noqdaanin la noqdaanin xagga education iyo xagga maskaxda iyo xagga nolosha ijtimaaciga because wadankeena burbur weyn baa ka dhacay marka dumarku waxay leeyihiin ficil siyaado ah oo ficilkaas oo noble ah dumarku waxa weeyaan ambassadors kaas oo dhinac kasta gashay waxaan haysanaa wacyigelin horta bulshada inaan isku xiranahay ka haween ahaan waa isku xiranahay wax dhibaataan nama dhex yaalaan dadka dhibaatada ka dhaxaysa haweenku maaha isku dan baanu nahay dad isku dan baanu nahay dadku waxa weeye hadday isku dan yihiin wax walba waxaa ka adag dadkooda ka adag dadkuna anaguna taabanaya fursadda aanu haysano waxa weeye inaan wada xiriirno inaan shirar qabsano inaan sembel iska warqabno inaan markii meel wax ka dhacaan aanu telefoonada isku dirno wada hadallo saasaa jirta seelu yeelaa gurmud isku samayno annagu jeebka iyo isaga darsano annagu marka halkaas aanu kaga qayb galno fursaddaas waan haysanaa fursado wanaagsan bay u haystaan fursado wanaagsan oo ugu faa'iideysan karaan bay u haystaan waxay u haystaan maxaa ahayd aqoontii waxay u haystaan hadalka lafteeda soo jiidasho qofka maskaxiyan in loo qabto waxay u haystaan maxaa ahayd nidaam fiican bay u haystaan nidaamkaas fiican oo horta xagga dhaqaalaha way ku dileen haweenka waxa reebayna waxa weeye iyadoo fursadii shaqada aan ka qayb galin inta badan ama aan hooyo wax kala dabari lahayd ama wax qaadan lahayd aysan ka soo qayb galin marka ugu horeysa meesha waxaa jirtay hadda wala shaqo wadi runtii shaqada qof weyn ku jira shaqadii waa inta kale waa arka xaafadda dhexdeeda laga qaban hayay shaqada aad bay u hooseysaa dardargelin ma haysato waxaa loo baahan yahay hooyadu waa dardargelinta hawlaha waay fursad aad u fiican waaye waa arin aad u qaali u ah Jubbaland gabigeedba nabadda waa shay gabdhaha haweenkeeda u taagan yihiin mar waliba waa dhabarka haweenka Jubbaland nabadda maanta Jubbaland taal haweenka keenta ilaahay baa keenay ilaahay ka sokow ciidamada keenay ciidamada kaalinta labaadna waa dumarka because dumarku waxay arkaan positive waxay u yihiin mediators khilaafka hadii jeer waxay ka istaagaan dhinaca saxa ah marka waxa la yiraahdaa waa spice waa xawaashkii nolosha ama ha noqoto xag siyaasadeed ama xag noqoto nolosha ijtimaaciyeed marka lagama maarmi karo dumarku inay ka qaataan rol siyaasadda sare go'aamada sare ee wadanka